kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa muuse xusho waxaad ku soo dhawaataan falanqeynada isku duuban ee kulan ciyaareedyo xiise leh oo horyaalka Premier League ka tirsan oo dhex mari doona kooxaha Leicester City iyo Manchester City oo soo horeynaya iyo West Ham oo martigelinaysa kooxda Liverpool oo horyaalka hogaaminaysa. waxaanu ku horeynaynaa kulanka soo horeeya ee dhex mari doona kooxaha Leicester iyo Manchester City. kooxda Leicester City ma heli doonto ciyaaryahankeeda Jordan Ayew kaasoo helay jaalihiisii shanaad ee xagaagan inta lagu guda jiray ciyaartii Boxing Day-ga ee ay la qaateen kooxda Liverpool khasaarahana ay kala kulmeen. kabtan Jamie Vardy ayaa la rajeynayaa inuu dib ugu soo laabto kooxdiisa kadib dhaawacan xooganayn oo uu ku seegay ciyaartaas. Wood Faze xiddiga la yiraahdo ayaan weli heli doonin inuu safka koowaad kusoo noqdo. kooxda Manchester City waxay qiimeyn doontaa ciyaaryahankeeda difaaca ka ciyaara ee Kyle Walker oo seegay ciyaartii Boxing Day ee ay garab dhac la galeen kooxda Everton sabab la xiriira xanuun uu qabay. Manchester City tababaraheeda Pep Guardiola ayaa ka warsugaya haddii ay soo noqon karaan iyo haddii kale. xiddigaha Ederson, Jack Grealish, Matheus Nunes iyo xiddiga John Stones oo dhammaantood in ay safka kusoo laabtaan laga rajeynayo. xaqiiqooyinka kulanka iyo kooxahan iswajahoodii ugu dambeeyay haddii aanu eegno, kooxda Leicester ayaa khasaartay 11 ka mid ah 13 kulan oo ciyaaraha Premier League oo ay ka hortagtay kooxda City, kumana aysan guuleysan inay shabaqeeda ilaashato 15 kulan ee ugu dambeeyay ee labada kooxood ay kulmaan. waxaa jira 13 ciyaarood oo ciyaaraha banaanka lagu soo ciyaaray ah oo guulo la gaaray 24 kulan oo ay iska hor yimaadeen ciyaaraha Premier League kooxaha Manchester City iyo Leicester. Manchester City ayaa guuleysan karta markii shanaad oo xiriira ciyaaraha banaanka ay ku ciyaarto iyadoo shabaqeeda ilaashatay markii ugu horeysay kulan ciyaareedkan. Leicester City ayaa guuleysatay mar ka mid ah 10 kulan ee ugu dambeeyay iyadoo 26 gool laga dhaliyay intii ciyaarahaas lagu guda jiray. kadib hal garab dhac iyo hal gool oo Ruud van Nistelrooy uu ku bilowday ciyaarihiisa kooxdan markii tababaraha looga dhigay, kooxda Foxes ayaa hadda guul dareysatay 3 ciyaarood oo xiriir ah waxaana laga dhaliyay 10 gool. tani waxay noqon doontaa ciyaartii 500aad ee Pep Guardiola uu hoggaanka u hayo kooxda Manchester City, waxaana ay ka dhigaysaa tababarihii labaad ee gaara heerkan marka loo fiiriyo kooxda City, waxaana ka horreeyay Les McDowell tababarihii la oran jiray. 9 ka mid ah 72 khasaare oo soo gaaray Pep Guardiola intuu hogaaminayo kooxda Manchester City waxa ay yihiin kuwo ku dhex jira 13 kulan ee ugu dambeeyay, waana sanadkii khasaare badne marka loo fiiriyo kooxda City. kooxda City khasaaraha kaliya ee soo gaaray dhammaadka sanadka 23 sano ee lasoo dhaafay waxa ay ahayd khasaare 1-0 ah oo ay banaanka ugala soo kulmeen kooxda Liverpool sanadkii 2016. taasi waxay ahayd daawadayaal falanqeynta kulan ciyaareedka dhex maraya kooxaha Leicester City iyo Manchester City. markana haddii aanu eegno kulanka dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo West Ham oo ka dhacaya garoonka kooxda West Ham. Lucas Fabianski, Max Kilman iyo Carlos Soler ayaa dhammaantood shaki la gelinayaa in ay u soo laaban karaan kooxda West Ham iyo kale kadib markii 3 ciyaartoyba laga saaray oo dhaawacyo looga saaray ciyaartii ay la qaateen kooxda Southampton oo ay guuleysteen. Thomas Schuchek iyo Guido Rodriguez waxa ay wajahayaan min hal kulan oo ganaax jaalayaal batay ah, halka Lucas Paqueta uu dib uga soo laabanayo isna ganaax. Dominic Szoboszlai ayaa seegi doona kulan ciyaareedka Liverpool ay la qaadanayso kooxdan markii uu gudoomay jaalihii shanaad. Bradley iyo Ibrahim Konate iyagu horay ayay usii maqnaayeen. tababare Arne Slot ayaa sheegay in weli ay la tacaalayaan xaaladda badqab ee ciyaaryahanka Diogo Jota oo 4 kulan ee ugu dambeeyay bedel kusoo galayay aanan xaq u yeelan inuu safka koowaad kusoo bilowdo tan iyo dhaawac dhinaca feerta oo soo gaaray kulan ay la qaadatay kooxda Chelsea. iswajahida labada kooxood iyo wararka la xiriira haddii aanu eegno, kooxda West Ham 3 gool iyo 2 guul ah oo ay ka gaadhay kooxda Liverpool November 2021 waa guusha kaliya ay gaareen 16 kulan ee ugu dambeeyay ee labada kooxood ay kulmaan. 3 oo ay garab dhaceen 12 West Ham ayaa la garaacay. kooxda Reds ayaa dhalisay ugu yaraan 2 gool 7 kulan ee ugu dambeeyay ee ka mid ah 8 ciyaarood ee labada kooxood ay horyaalka ku kulmeen ee u dambeeyay. kooxda Hammers
ayaana ku guuldaraysatay 5 kulan ee lasoo dhaafay inay shabaqeeda ilaashato. Kooxda West Ham haddaba haddii aanu eegno lagama badin 4 kulan ee ugu dambeeyey, waxaana ay doonaysaa in guushii labaad oo xiriir ah ay diiwaan gashato tan iyo 9 bilood ee lasoo dhaafay. Waxa ay khasaareen 3 ka mid a ciyaaraha gurigeeda intii Julian Lopetegui uu hoggaanka hayay bilowga horyaalka, balse hadda in gurigooda lagu garaaco maalmahan waa ay kasoo kabanayaan 3 guulood iyo 2 garab dhaac ayaanay ku galeen gegida London Stadium. Dhinaca Liverpool haddii aan eegno, Reds waxa ay eeganaysaa in sanadka cusub ay ku furato hoggaanka horyaalka, waana ay xaqiijisay taas. Kaliya 2019 iyo 2020 ayay ku guuleysteen koobkan in ay qaadaan, waana markii 7aad oo kooxdani iyada oo hoggaanka haysa sanadka cusub la galo. Kooxda Merseyside-ka ku ciyaarta ayaan laga adkaan ciyaaraha horyaalka ee bannaanka ay kusoo ciyaartay, waxaana 6 guulood iyo 2 garab dhaac ay ka haystaan ciyaarahaas. Liverpool ayaa laga dhaliyay 10 gool 4 kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League ay bannaanka kusoo ciyaarto, taasina waxa ay dhacaysaa in kulankiiba laga dhalinayay 2 gool, balse markiiba waxa ay qaateen 8 dhibcood, 2 guulood iyo 2 garab dhac. Waxa ay noqon karaan kooxdii ugu horeysay ee dhalisa lagana dhaliyo goolal badan 5 kulan oo isku xiga ciyaaraha horyaalka tan iyo West Bromwich Albion 1966. Mohamed Salah ayaa noqon kara ciyaaryahankii ugu horeeyay ee dhaliya goolal fara badan 4 kulan oo ciyaaraha horyaalka ah, dhalis iyo caawinba, waxaana uu sidan ku yahay ciyaaryahankii 3aad ee 3 ciyaarood oo xiriir ah goolal dhalin iyo caawin isku dara, kadib Dennis Bergkamp oo 1997 sidaas sameeyey iyo Harry Kane oo 2017 isna sidaas sameeyey. Taasi waxay ahayd falanqaynta West Ham iyo Liverpool ciyaarta dhex mari doonta. Ciyaarahan horyaalka ee maanta dhacaya xilliyadooda haddii aanu eegno, 5:15 waxaa la baasan doonaa dhinaca geeska Afrika kulanka dhex mari doona kooxaha Leicester iyo Manchester City. Kulamada kale ee jirana waxaa ka mid ah Crystal Palace oo soo dhaweyn doonta kooxda Southampton marka ay saacadu tahay 6 maqribnimo. Everton waxay la kulmi doontaa kooxda Nottingham Forest marka ay iyana tahay 6 maqribnimo. Fulham iyo kooxda Bournemouth ayaa isla 6 iyana wada ciyaari doona. Tottenham ayaa marti qaadaysa kooxda Wolves xilligaas oo isla 6 maqribnimo ah, halka 8:15 ay kulmi doonaan kooxaha West Ham iyo Liverpool, waana kulanka ugu dambeeya ee caawa ciyaaraha ka dhacaya horyaalka Premier League Ingiriiska. Muuse Xusho ayaa idinla socodsiinaya daawadayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Subscribe-ta noogu dhufta qaybta YouTube waanaad ku mahadsantihiin la socodkan.